السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inkastoo ku darsashada milixda ee cuntooyinku ay tahay mid lama huraan ah, haddana waxaa jirta isticmaalka badan ee milixdu inay tahay arrin khatar caafimaad keenaysa. Waxaana jirta calaamado la sheegay hadduu qofku isku arko inay muujinayso in jidhkiisa ay ku jirto milix badani, kuwaasoo ay ka mid yihiin harraadka ama oonka joogtada ah oo qofku xataa habeenkii isku arko ayaa lagu sheegay calaamad muujinaysa in jidhkaaga ay ku jirto milix badani. Cagaha oo si lama filaan ah kuu barara ayaa iyadana lagu sheegay calaamad kale oo muujinaysa in jidhkaaga ay ku jirto milix badani. Daalku gaadhsiiye xataa inaad awoodi weydo shaqadaada maalinlaha ah ayaa iyadana lagu sheegay calaamad muujinaysa in jidhkaaga ay ku jirto milix badani. Madax xanuun joogto ah oo aanay jirin sabab kale oo keenaysa ayaa iyadana lagu sheegay mid daliil u ah in jidhkaaga ay ku jirto milix badani. Waxa kaloo milixda badan ee jidhkaaga ku jirta ay keeni kartaa in dhiiggaagu si kheyral caadiya kor ugu kaco. Dhammaan arrimahan qofka isku arkana waxaa lagula taliyaa inuu si degdeg ah ula xidhiidho dhakhtarkiisa si loo hubiyo xaaladda. Dhinaca kalena, iyadoo marba marka ka dambaysa ay soo badanayaan digniinaha laga bixinayo isticmaalka badan ee sonkorta, isla markaana xeeldheerayaasha caafimaadku ay sheegayaan in isticmaalka badan ee sonkortu ay khatar ku tahay caafimaadka qofka bini'aadanka, ayaa haddana waxaa adkaatay in qaabka ay dhakhaatiirtu ku talinayaan la isaga ilaaliyo sonkorta, maadaama sonkortu ay ku jirto inta badan cunitaanada iyo cabitaanada aynu sida joogtada u isticmaalno. Haddaba daraasado dhinaca caafimaadka ah oo dhowaan la sameeyay waxay sheegeen in muddo bil ah oo qofku gebi ahaanba iska daaya sonkorta, isla markaana faraha ka qaado dhammaan cabitaanada iyo cunitaanada sonkortu ay ku jirto, in qofku muddada bisha ah ee sonkortu ay jidhkiisa ka maqan tahay uu ka helayo 7 arrimood oo u fiican caafimaadka jidhkiisa, kuwaas oo kala ah miisaanka saayidka ah ee jidhka oo xaddi badan hoos u dhaca muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka, iyo arrinta labaad oo ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay qofka jidhkiisa in gebi ahaanba jidhka noocyadiisa kala duwani ay si habsami u shaqeeyaan, isla markaana jidhku uu jaanis u helayo inuu gubo oo burburiyo sonkortii hore ee ku jirtay jidhka ee jidhku aanu u baahnayn. waxaa kaloo arrinta saddexaad ah oo khabarada caafimaadku ay sheegeen in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka uu qofku helayo hurdo raaxo leh. waxa iyana arrinta afraad ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka uu wanaagsanaanayo diirka sare ama maqaarka sare ee jidhka, isla markaana uu soo baxayo quruxda iyo dhalaalka diirka sare ee qofku. iyo arrinta shanaad oo ah in muddada bisha ah ee gebi ahaanba sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka uu jidhku helayo difaac uu iskaga difaaco xanuunka macaanka ama sonkorowga, gaar ahaan nooca labaad. waxaa kaloo iyana arrinta lixaad ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka 35% qofku uu ka badbaadayo xanuunada ku dhaca wadnaha. iyo arrinta toddobaad oo ah inuu yaraanayo ama ilaa xad hoos u dhacayo suuska gala ilkaha, iyadoo hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ay dhowaan sheegtay in isticmaalka badan ee sonkortu uu waxyeello weyn u geysta ilkaha.